maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada Boorama ayaa waxay maanta munaasabad sabootina u sameeyeen ardaydii ku guuleysatay imtixaankii shaqo qaran ee magaaladani Boorama kuwaasi oo muddo lagu soo tababari doono deegaanka Dararweyne waxaan xagaasi ka hadlay maamulka gobolka iyo degmada iyagoona ardaydaasi si sabootiye ayaa waxay sheegeen madaxnimadiina maanta tar albaabka u furaysa runtii waana hawl aw bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi runtii وانا arrin aan u arko jaanis aynu doonayno inaynu kaga hormarno dadka haduu ilaahay dhaahdo cidii ilaahay ka qayb galiyo waa cid ka nasiib badan kuwa kale ee kaadhe kuwa kale wax rajeynaya inay iyaguna ku xigi doonaan runtii waxaan u arkaa inay tahay jaanis la kulanteen hay naga beerdareynina waan garanayaa inay aqoontii ay ku hagi lahaayeen ummadooda inay leeyihiin haduu ilaahay dhaahdo waa waaya aragnimo waa jaanis waxaan leeyahay hala tartamo gobolka guul soo hooya dadkii ka yimi gobolka Awdal waxa ku suntanaayeen wanaag iyo akhlaaqad waa in la yiraahdo haduu ilaahay yiraahdo maanta isku timiday waa intii nukhbadii ama xulkii ama labeentii dhalinyarta gobolka Awdal maadaama ay taan feera ay galeen ku guuleysteen inta hadda arkaya waa nimankii dhalinyartii masaajida tirahaan ilaa 110 yaan noqotaan baa laga yaabaa inta hadda baabuurta dambe la soo saari doonaa waxaan leeyahay gobolka Awdal ka muuqdo gobolada kale haday tacliin tahay haday akhlaaq tahay haday tahay sida dadka loola noolaado wax dhaxgalaysaan bulsho fara badan oo ardaya marka rag ku suntan wanaag dhanka kale ardaydii ka qayb qaadanaysay isla markaana maanta xaqani lagu sabootinayay oo iyaguna dareenkooda ka hadlay ayaa waxay sheegeen ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda u tagaysa shaqo qaran ee soo dhameysteen muddada halka la sheegay waxaan aad ugu bogaadinayaa dhammaan ardayda kala duwan ee gobolka Awdal ee saaka u baxaysa halka gobolka Maroodijeex